maamulka cusbitaalka kalkaal ee magaalada muqdisho ayaa soo bandhigay adeeg cusub oo lagu soo kordhiyay qaliimada kaas oo aan dalka hore ugu jirin. waryaheena Xabiib Axmed Cali ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya. xafladan oo ulajeedkeedu ahaa soo bandhigida qaliimo ka cusub dalka sida jilbaha iyo simaha oo ay sameeyeen dhaqaatiirta isbitaalka kalkaal ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya, aqoon-yahano, dhaqaatiir, waalidiin iyo marti sharaf kale oo goobta lagu casumay. agaasimaha guud ee isbitaalka kalkaal Cabdullaahi Cabdikariin Jawhar oo ugu horreyn xafladda ka hadlay ayaa ka warbixiyay adeegyada cusub oo ay soo kordhiyeen. inaad ka soo qayb gashaan xiritaanka qaliinada aan sameynay oo ah qaliinadii dibadaha loo aadi jiray sida bedelka jilbaha, sinaha iyo qaliinadii la mid ah. qaliinadan waxaa loo aadi jiray Hindiya iyo Malaysia iyo wadamo badan. hadda waxaan u keenay wadanka inaan u fududeyno dadka Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan. qaliinkan dhaqaatiirta sameynaysa waxay ka timid Hindiya, Soomaaliya iyo Syria dhaqaatiir. qaliinaha ilaa hadda waxaan sameynay 7 qaliin. dadka qaliinada loo sameeyay way soconayaan hadda. Sheekh Maxamed Faarax oo kamid ah ehelada dadkii qaliinka cusub lagu sameeyay ayaa ka sheekeeyay xaaladii ay ku sugnayd eedadiis Faadumo ka hor inta aysan qaliinka ku sameyn dhaqaatiirta isbitaalka kalkaal. Faadumo Faarax Roble waxay ahayd eedadii abahay la dhalatay. aniga waxaa la yidhaahdaa Maxamed Cabdi Faarax Maxamed Kase. eedadii waxaan uga quusanay in aan halkan wax uga qabanno ilaa 3-4 goorna waxaan isku daynay in aan Hindiya u qaadno. ilaahay fadligii maanay suurtagelin. waxaan ka baaqanay ama ka nabad galnay safarkii aan wadi lahayn Hindiya ama meel kale ama Turki ama Malaysia meelo badan aan hamaynay oo isku dayaynay in aan u qaadno oo ku soo daaweeyay. laakiin ilaahay mahadiis waa ka kaaftoonay. hadda eedaday waa la qalay. waana lagu guuleystay qaliinkeedii. jilibkeeda ayaa la qalay. jilbaheeda jilib ka mid ah ayaa la qalay. jilibka labaadna dhaqtarku wuxuu nagu yiri ilaa 6 bilood ka bacdi ayaan ka bedelayaa haddii Allah idmo markii kan uu raysto. keediina hadda ilaahay mahadi waa ay ku socotaa oo ruuheeda dhulka way saaraysaa. wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi oo ugu dambeyn madasha ka hadlay ayaa bogaadiyay maamulka isbitaalka kalkaal wuxuuna intaa ku daray in loo baahan yahay wada shaqayn dhexmarta wasaaradda caafimaadka iyo isbitaalada gaarka loo leeyahay. waxa kaliya aan codsanaya waxay tahay in hay'adaha dawladda iyo private sector-ka shaqadoodu ay noqoto shaqo aad iyo aad isugu xiran. waxa la idinkaga baahan yahay haddaad tihiin isbitaalada ee shacabka Soomaaliyeed amaanada uu anaga noo dhiibtay oo ah inaan controlno in lagu caawiyo. waxa aan u baahannahay waxa weeyaan shacabka Soomaaliyeed ee maantadan daawooyinka ee qaadanaya amaliyaadka lagu sameynaya amaanada naga saaran waxay tahay in anagu aan noqono dadkii siin lahaa the best care ama siin lahaa maxaan raahday arin caafimaadkooda run ahaantii soo celinayso buuxda. annaguna qaybtaasaan ka qaadanay ka dawlad ahaan. waad arkaysaan ifafaalaha ilaahay hadduu yiraahdo waa soo kabanaynaa. isbitaalka kalkaal oo hore u sameeyay qaliimo kala duwan ayaa hadda ku guuleysay inay markii ugu horeeyay gudaha dalka ka furiyaan qaliimo isugu jira jilbaha iyo simaha waxayna arintan saacidi doontaa bukaano badan oo hore dalka dibadiisa adeegyadan dartood u aadi jiray dhibaato badanna kala kulmi jiray. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.